robab xoogan oo maalmahan ka daayay degmooyinka Boorama Baki iyo meelo ka tirsan gobolka Awdal iyo degmada Gabiley ayaa waxay khasaare gaarsiiyeen robabkaasi daadadkii ka dhashay beerleyda dooxada qabri baxar oo ka tirsan degmada Lughaya ee gobolka Awdal. daadadka ka dhashay robabkan oo ha ku aad u laxaad weyn ayaa waxay baabi'iyeen isla markaasina khasaare laxaad la gaarsiiyeen dalagyadii ka baxay ku dhawaad 30 beerood ah kuwa beer biyoodka oo ku yaala dooxada qabri baxar ee degmada Lughaya ee gobolka Awdal. sidoo kalena waxay daadadkaasi la tageen agabkii beeraha lagaga shaqeynayay iyo wixii hooy iyo u ahaa beeraleyda deegaanadaasi. wariyaasha ka tirsan telefishinka Somali Sad ee ka howlgala gobolka Awdal ayaa indhahooda ku soo arkay khasaaraha ay daadadkaasi u geysteen beeraleyda ka tirsan gobolka Awdal ee dooxada qabri baxar ee degmada Lughaya. beeraleyda ayaa waxa ay sheegeen in daadadkan xoog badan ay khasaaraha gaarsiiyay beerahooga ay ugu dambeysay sanadkii 1986. waxa kale oo ay xuseen daadadkan ay beerahooga soo galeen xilli ay hurdeen oo ku beegnay xilligii suxuurta ama labadii habeenimo, isla markaana ay nafahooda ula carareen markii ay arkeen quwadda iyo xoogga daadadkan. aniga waxa la magacayga Maxamed Ibrahim, waxa weeyaan dooxani qabri baxar ayaan ku noolahay oo ka qabanaa beer ka falana. waxa weeyaan robab laxaad ayaa ka daay buuraleyda, waxa weeyii beertii waxay gaarsiiyeen khasaare laxaad leh. waad aragtaa dee sida iminka ay quruxu u aasan beertu aasan tahay sidaa dee wata saraci sidaa u gooyo daadadkani xalay toolye iyo yimaadeen wata u gooyo roobkoodii ka mid ka daay eeriyada deegaankan oo ku yaraa unagu yaraa intani aan joognay beeraha waxa ka beeraa shamaam xabxab digir iyo wixii la mid ah. waxayga Maxamed waxaan ka mid ahay xaafadii waxay degan tahay halkan bay degan tahay beerta baan u degan tahay wax tiyo kale u degan waxaan qudanayna beerta maanta si xoog iyo loo qodo gabigeega la wada casiyay wixii aan ka beeray sidaas oo ayuu ka dhigay daadkani oo xalay yimid galigii dambe roobkaasina anaga nagu yaraa qolka wixii aan ka beeray wixii aan ka soo qodnay geeyba khasaarahaas ayaa ka dhacay. waxaan ka beernaa beerta ayaad maarkay khasaarahaas bartiiq xabxab iyo digir iyo wixii la mid ah wasar badan baa ku beeray. tirada maartay beeraha khasaarahan soo gaaray inta malaynaysaa wallahi ma cadadi karaya aad bay farabaanta qalabkii lagu qodayay xitaa kii dhex yaalay ceelkaas jinnadii wixii uu lahaa yaa ku galeen oo raacay oo geedka yaalay geedka dhoora waxa ahaa waabkii la ahaa oo qodii xaga looga gurayo waabkii xagabka la dhigay ilaa 400 bisha laga dhigay beerta dhakan labada beerood ee dhakan waxba laga ma gooyin iyaga wixii ka baxay sidaas uu ku galay. magaca walba girs hay ifteen hay magaca nafiya ma la deeru wixii anagu ma ka baxay dadkii wixii dad markuu ka baxay wixii aan beerna ku tacaabeynay taas oo dad bilow ku soo dadaalay oo socday waxaana koona suuqiyo waxaan maanta waxaan ka cunay jiray oo imika madaxiisi bislaaday oo maanta de waxaan anagu kaga noolaanay amba dad kale aan ka iibsanay jiray amba qowl loo yimaadina wax nala cunay jiray ayuu qaaday. waxa ilaa shirka ma hay saacad labadii habeen idinku markaa ma hurdeen hurdnaa hadeen mise waan ka badnaa ka yacan xiinkii markaan maqalay xiinkii guuxiyaan maqalay awl badaadku mari jiray haydo kulli isbedel buu sameeyay ma garanaysaa xiinkii ka taxay ka sayra arnade markaa waan ka yacan. wallahi waxaan ku qadari karaa horta madaxa uu laga qaaday kolkaan wax go'aana iyo waxaan ka iimaas garay kolka noqday ilaa 6,000 oo mid oo xabxaba iyo ilaa 500 oo bartii khabo qaaday 6,500 iyo qaaday. agabkana inteed ku qiyaasi kartaa wada ka qaado agabku fara badan yahay daawo wixii beerta oo dhan laga shaqeynay. beerleyda ayaa waxa kale oo ay tilmaameen dalagyada ay baabiyeen inay u badnaayeen dalagyada xabxabka iyo shamaamka. waxa kale oo ay ka dalbadeen maamulka Soomaaliland iyo hay'adaha samafalka bixiyaba inay ka caawiyaan khasaaraha soo gaaray ay soo gaarsiiyeen daadadkaasi ka dhashay roobabka ka daay gobolka Awdal. Soomaaliland waxaan ku casanayn in wax nagala qabto dhulkan daadka uu ka soo jabay biyuhu ka naga soo baday in naga caawiyo moos iyo wax kale oo biyaha naga celiya naga qabto gabyano kale wax beeraha la talo oo markaa 68kii ayuu khasaare caynkan oo kale loo geystay geedweyn iyo wax badan ku jiray. markaa ma helo wax gabyano oo aan gargaar oo markaasi aan wax kaga taaqoreysano daadadkaas waa la arkayaa dibta nagu dhacday waxaan si ka dalbanaynaa inay gargaarna la soo gaadhaan. soo kale waxay daadadkan kala xidheen isku socodka gaadiidka iskaga gudba Hargeysa
iyo waddanka Jabuuti oo inta badan mara dooxada qabri baxar ee degmada Lughaya waxaana halkaasi ku xaniban gaadiid badan oo ka yimid dhanka waddanka Jabuuti iyo kuwa ku socda Jabuuti oo iyaguna ka yimid dhanka magaalada Hargeysa. Haashim Sheekh Cumar Good, Somalisat TV, dooxada qabri baxar ee degmada Lughaya.